أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. waan salaamayaa dhammaan akhyaarta ku taxan boggeena channelka education. waxaan rabaa inaan maqdacan ugu jawaabo walaalaha ama asxaabta boggan ku taxan mid kamida su'aal soo weydiiyay. waan doonaynaa su'aashaas inay noqoto mid ay ka wada faa'iideystaan dhammaan akhyaarta ku taxan boggeena. su'aashaasi waxa way walaalku inuu soo weydiiyay mararka qaarkood waxaa dhacda gaar ahaan waxaa ku dhacda dadka diyaarinaya doctorada ama magisterka ay u baahan yihiin safaxaadka ugu horeeya baxthigooda ilaa 1 ilaa 5 6 7 intay rabtaba ha noqoto inay ka dhigaan ama ay ku tarqiimiyaan waxa loo yaqaan xuruufta ha noqoto xuruuftaasi ABC ama ha noqoto alif ba ta tha ama ha noqoto abjad inta ka dambeysana baxthiga ay hadii ay ku tarqiimiyaan lambarka caadiga oo 1 2 3 4 ama hadii ay ku roon yahay waxa la yiraahdo 1 2 3 4 marka waxaanu doonaynaa inaan su'aasha ugu jawaabno si ay walaalaha kale uga faa'iideystaan dhamaantood. haddaba waxaanu soo qabsan doonaa baxthigeena طبعا sida la yaqaano baxthiga qaybihiisa hore oo dhan waxa ku qoran wax hordhac la yiraahdo oo baxthiga hordhac u noqdo iftitaaxaas ku muuqda ayaa kamid ah waxa kamid noqda al-ihdaa ama ihdaa waxa la yiraahdo shukr wa taqdiir ba kamid noqda maxaan ku yiraahdaa waxa kamid noqda waxaan ku yiraahdaa muqaddima ayaa kamid noqota kulligood wada arki doontaan hadii Allah yiraahdo muqaddimada wata waxa la yiraahdo mushkilaat al-bahthi ama tamhiid iyo waxyaabahaas oo dhan ayaa kasi mid noqda ugu dambeyn khudat al-bahthi ayaa kamid noqota. haddaba waxaan doonayaa in aan hadii ay ku reeyay inahaas oo dhan aynu ku diyaarino alif bata ama waxa la yiraahdo ABC wixii ka dambeeya dabcan ilaa 9 safxo ay inoo joogta wixii ka dambeeyana waxaanu doonaynaa inaan ku tartiibino ama ku diyaarino xuruuf balka lambarada caadiga ah. haddaba ila socda hadda ayaan bilaabayaa barnaamijka safxada hore ta halkeeda ugu dambeeya ayaan tagi doonaa hadii Ilaahay idmo markaan safxada hore halkeeda ugu dambeeya tagana waxaan tagi doonaa hadii Ilaahay idmo waxa la yiraahdo ayaan tagi doonaa marka koobaad bay idraaj ayaan tagayaa waxaan soo dooranayaa idraaj waa insert ugu la soco haddana waxaan dooranaynaa raqam safxa ama page number dabadeedna waxaan dooranaynaa lambareyntii ama kor ayaan ka saari karnaa hoosna waan ka saari karnaa keeda rabta ayaa dooranaysaa hoos marka doorato taqriiban ma dhinac baad rabtaa ma dhexda rabtaa ma dhinaca kale ayaa rabtaa adiga ay ku talaado tan hoos ayaan iska dooranaynaa hadii Ilaahay idmo sidaas ayaan waxaan aragnaa lambareyn inuu ku sameeyay bog barnaamijkeeni oo dhameystiran ma kala socona min 1 ilaa iyo meesha ugu dambaysa oo 30 iyo dhowrka ah ay isla tagayaan. haddii markaa sida ay tahay waxaanu sameynaynaa waxaan dooranaynaa markaas تخطيط الصفحة halkan waan ka baxayaa laana تخطيط الصفحة ma ay shaqeynaysaa hadaan halkan ku jiro iqlaaq baan dhihi doonaa markay sidaan tahay ayaan waxaan dooranayaa تخطيط الصفحة dabadeedna waxaan dooranayaa فواصل waxaan ka dooran doonaa الصفحة التالية daba waxay noo soo gelaysaa halkan safxo banaan safxada banaan hadhow waxaanu ku soo buuxin doonaa hadii Allah idmo mawaadiicdi iyo waxa la yiraahdo fahrisul mawaadiic. haddaba iftitaaxaas oo boggaas aynu joogno bogga saddexaad ah ayaa waxaan doonaynaa oo inuu ka bilowdo lambarkii caadiga ah oo aynu doonaynaa inaan wax ku tartiibino markaanu doorano tan irtibaat sharci waan ka saari doonaa hadii Allah idmo irtibaat inay yeelato ma doonayno irtibaat sharci halkaas inay yeelato ma doonayno haga markaynu tagno waxaanu ku daalaaban doonaa ay balka la yiraahdo tan waxaanu ka soo dooranay yani halkan double click markaan gelino halkan irtibaat sharci ayaan ka saaraynaa hadii ku jirto hadii ku jirtana sidaas ay noqonaysaa barnaamijku oo active kaas ay noqonaysaa hadii kale tan waxay noqonaysaa bila active inay bila active tahay rabna oo safxada ay noqoto mid bilo waxaanu dooranaynaa marka idraaj deedna waxaan dooranaynaa raqam safxa dabadeedna waxaan dooranaynaa waxa la yiraahdo tansiiq al-arqam halka ayaan waxaan ka soo dooranaynaa ABC ama alif abjad kan ayaan dooranay halkaana lambar ayaan ku qoraynaa muwaafaqna waan dhahaynaa markaan muwaafaq niraado dabcan waynu ka bixi karaynaa shaqadii qaybtii koobaad ayaan dhamaynay lambaradaasi haddaba waxay isdaba yaaleen ilaa iyo meesha baxtiga ugu dambaysa wax kala soocan malaha laakiin inagu waxaanu doonaynaa
halka la yiraahdo khudatul baxthi in aysan waxba yeelan daba khudatul baxthi waatan khudatul baxthiga ma doonayno inay macluumaad gasho marka iyada kor baan u soo qaadaynaa اوكي markaynu kor u dalacna waxaan soo dooranaynaa haddana تخطيط الصفحة فواصل dabadeedna الصفحة التالية waxaynu doonaynaa خطط البحث inay noqoto shay madax bannaan oo hal meel kaliya joogta waxaynu doonaynaa haddana halkan lambar inuusan ka muuqan oo خطط البحث inta badan waxay sameeyaan inta khudada safxadaas inay noqoto safxa bannaan oo wax lambar ba lahayn sidee baynu u sameynaynaa dib ayaan uga soo laaban doonaa haddii mawduuca ayaynu tagaynaa aan rabno mawduucayna waa kan mawduucayna markaynu tagnay safxada aakhirkeeda ayaanu tagaynaa safxada koobaad oo mawduucu ka bilaabanaya waxaynu doonaynaa halkan in lambarkeena caadiga tarqiimka ka bilaabano haddii lambarkeena saan uga bilaabano dhamal kaliya ayaan ku fanaynaa gudaha ayaynu galeynaa halkan waxaan ka fiirinaynaa ma leedahay baasha la yiraahdo irtibaat tashacubi mise male irtibaat tashacubi inaysan lahayn baan u jeednaa haddaba haddii irtibaat tashacubi lahayn haddaan soo celinteen hore ayaa noo soo laabanaysa laakiin irtibaat tashacubi waan ka qaadanaa haddaba waxaan tegayaa haddana raqam safxa waxaan dooran doonaa haddii alle ku yiraahdo meesha la yiraahdo page number dadna waxaan dooran doonaa tansiiq al-arqam halka ayaan waxaan ka soo dooran doonaa lambarka kan lambarka soo doortana halkan lambar 1 baan ku qori muwaafaqna waan dhahay okay hoos ayaan u baxayaa anoo soo eegaya natiijadii sida ay tahay harata lambarkii inuu bilowday 2 sii marayo 3 marayo 4 marayo haddaynu kor u baxanaana waxaynu arki doonaa haddii ilaahay idmo safxooyinkii naga korreeyey oo lambarkooda ku diyaarsan ay yihiin xuruuf ama abjad ha noqoto watana ama ha noqoto wax kaliya abjad ayada ah زاي اوكي labada noqdo hadda ii dhiman waxa waaye naqshadihii waad fahmteen baan filayaa labada noqdo hadda ii dhiman mid waxa waaye in aan safxadan khudatul baxth ay ku qoran tahay aysan wax lambar lahayn oo lambarkeeda uusan waxaan tagayaa marka la yiraahdo muuska halkan ayaan dhigayaa muushar muuska halkan dhiga waxaan dooran doonaa idraaj murabbac nas ayaan dooranayaa naska ayaa ii soo galaya waxa gudihiisa ku jira ayaan iska tiraaya isagana waan soo qaadayaa waxaan dul keenayaa lambarka meesha ku yaal waan weyneynayaa si uu lambarka u qariyo haddana waxaan dooranayaa haddana mukhatat al-tafsiili lishakl waxaan dooranayaa bilaa mukhatat al-tafsiili deedna waan ka baxayaa sidaas ayaa lambarkaas u kaaga qarsoomay markaynu tagno labada page ugu horeysa oo ciwaanada ahayd ama aan ugu tala gashan inaan soo gelino waxa la yiraahdo khadadkii halkan waxaan sameynayaa caadi baan u galiyaa dhamal kaliya ku dhufanayaa waxaan ka tirayaa lambarka laana lambarkan u baahnay gacanta ayaan ku tirayaa tan hoosena waa u baxayaa waan rabnaa inaan ciwaanada kasoo buuxino dee lambarku wuu ka baxayo ama kuwii hoose wuu joogaa lambarkii waxba ayaga ma ka saarayo laannahu waxaan rabnaa in lambaradeeda caadi inuu noqda okay si fiican aad fahamteen baan filayaa haddaba boggaan barnaan waxaan rabnaa inaan soo gelino wixii la dhihi jiray mawaadiicdii ama fahriskii aynu u samaynay barnaamijkaanu u samaynay fahriskaaga ayaad soo qaadanaysa halkan ayaad soo gelin doontaa haddaa rabtidna halkan laftarkeeda ayaad ku samayn kartaa siyaabahan hore ugu soo baranay casharkanana inahaas aynu kusoo koobaynaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin waa anigoo saciid axmed faarax idin leh waad salaamantihiin